Wad salaamantiin asxaabta ku soo dhawaada barnaamijkeena 1 by 1 oo aan ku soo qaadan doono wararka iyo warbixinihii ugu dambeeyay. Waxaan wadeegi doonaa heshiisyadii la sameeyay saacadihii ugu dambeeyay kuwa la filayo inay dhacaan iyo xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Aynu ku bilowno kooxda Tottenham ayaa si rasmi ah ula soo wareegtay ciyaartoyga ka ciyaara daafaca midig ee Spence oo ay ka soo bixiyeen lacag dhan 12.5 milyan. Haddaba Spence ayaa kooxda Tottenham u saxiixay heshiis dhan ilaa 2027. haddaba kooxda Tottenham ayaa wato tababaraha Antonio Conte oo isku diyaarinaysa xilli ciyaareedka cusub ayaa ilaa hadda ciyaartoyda ay suuqa ka soo iibsadeen ayaa kala ah Perisic, Forster, Bizuma, Richarlison, Lenglet iyo Spence. dhinaca kale kooxda Leicester City ayaa diiday dalab uga yimaada dhinaca kooxda Monaco oo ay rabtay inay kula wareegto ciyaartoygeeda Soumare. dalabkaas oo ahaa 15 milyan iyadoo ay kooxda Leicester rabto inay ku fasaxdo ciyaartoygeeda Soumare ugu yaraan 20 milyan. sidoo kale waxaa la sheegay inay kooxda Everton rabto inay hab ama ah kula wareegto ciyaartoyga kooxda Chelsea ee Gilmour kaas oo xilli ciyaareedkii hore kooxda Norwich City hab ama ah kula joogay. waxaana la sheegay inuu rabo Frank Lampard ciyaartoygan maadaama uu ahaa tababarihii kooxda Chelsea markii uu Gilmour ka soo baxay akademiyada kuna soo biiray kooxda koobaad. dhinaca kale kooxda Manchester City ayaa sheegtay inuu golwadaheedii labaad ee Zack Steven hal xilli ciyaareed oo ama ah ugu biiri doono kooxda Middlesbrough. isla kooxda Manchester City ayaa la filayaa inay la soo wareegto ciyaartoyga kooxda Brighton ee Marco Correa kadib marka ay dhamaystirto iibinta xidigeeda Zinchenko oo la filayo inay saacadaha soo socda si rasmi ah ula wareegto kooxda Arsenal. halka ay kooxda Manchester City soo bandhigeen maaliyadda labaad ee kooxda oo la filayo inay ku ciyaaraan kulamada awayga ah ama ay la filayo inay ku ciyaaraan ciyaaraha awayga ee ay ku ciyaari doonaan banaanka garoonka Etihad Stadium. bal markan aynu eegno kooxda Real Madrid oo soo saartay liiska ciyaartoyda u safri doonta wadanka Mareykanka halkaas oo ay kooxda ku ciyaari doonto kulamo saaxiibtinimo ah. waxaana ka muuqday liiskan ciyaartoyda cusub ee la soo iibsaday sida Tchouameni iyo Rudiger. haddaba kooxda Real Madrid ayaa wadanka Mareykanka ku ciyaari doonta 3 ciyaarood oo saaxiibtinimo ah. kulanka ugu horeeya oo ah kulanka ugu muhiimsan ayaa waxa uu noqon doonaa El Clasico kaas oo la filayo inay la ciyaarto kooxda Barcelona halka ay labada kulan ay kala la ciyaari doonto kooxda Juventus iyo kooxda Club America. dhinaca kale kooxda Atletico Madrid ayaa shaacisay inay magaca ka bedeshay garoonkeeda oo garoonkeeda markii hore waxaa la oran jiray Wanda Metropolitano. haddaba kooxda Atletico Madrid ayaa garoonkeeda magaca qaybta hore ka bedeshay oo garoonka magacii kamay wada bedelin balse qaybtii hore ay bedeshay markii hore waxay ahayd Wanda Metropolitano hadda waxa ay ka dhigeen Sebastian Metropolitano. dhinaca kale kooxda Barcelona ayaa ciyaartoygeeda Musa Wagiye hab ama ah ugu dirtay kooxda ka dhisan wadanka Croatia ee Gorica. isla kooxda Barcelona ciyaartoygeeda Braithwaite ayaa rabay oo ay rabtay inay kooxda Barcelona iibiso ayaa warar ka soo baxay wadanka Holland waxa ay sheegayaan inay kooxda Ajax ku fikirayso inay la soo wareegto Braithwaite si ay u xoojiyaan weerarka kooxda Ajax oo xilli ciyaareedkan ka baxay weeraryahankeedii Sebastian Haller kaas oo ku biiray kooxda Borussia Dortmund. qodobada kale ee ku saabsan kooxda Barcelona iyo suuqeeda ayaa waxaa ka mid ah in haddii ay kooxda Barcelona ku guuleysato iibinta Frenkie de Jong iyo qayb ka mid ah istuudiyada kooxda Barcelona in la filayo inay suuragal tahay imaantinka Bernardo Silva inuu yimaado garoonka Camp Nou. sidoo kale sida uu sheegay Fabrizio Romano wakiilka ciyaartoyga Kunde ayay isku afkarteen shuruudaha gaarka ah kooxda Barcelona isagoo laacibkuna rabay inuu ku biiro kooxda Barcelona. waxaana la filayaa inay dhacdo sidii Rafinha oo kale kadib markii ay kooxda Sevilla ka diiday kooxda Chelsea dalab ahaa 50 milyan oo ay ku rabeen ciyaartoyga Kunde. intaa kadibna waxaa la filayaa inay kooxda Barcelona u dhaqaaqi doonto ciyaartoyga Bernardo Silva oo uu imaatinkiisu ku xidhnaan doono Frenkie de Jong. Frenkie de Jong haddii uu sii joogo kooxda Barcelona waxaa adag inay kooxda Barcelona soo iibsato Bernardo Silva. laga yaabaa haddii uu baxo Frenkie de Jong inay kooxda u dhaqaaqdo dhinaca Bernardo Silva. sida ay sheegeen warbaahinta Spain kooxda Real Sociedad ayaa si rasmi ah ula soo wareegtay ciyaartoygii hore ee kooxda Real Madrid ee Teke Kubo oo ay ka bixiyeen lacag dhan 6 milyan isagoo qalinka ku duugay heshiis dhan ilaa 2027. haddaba Real Madrid ayaa ciyaartoygan hadhow haddii ay iibiso kooxda Real Sociedad yeelan doonta 50% qiimaha lagu iibiyo Teke Kubo. sidoo kale sida la sheegay weeraryahankii hore ee kooxda Manchester United ee Edinson Cavani ayaa heshiis hordhax ah la gaaray kooxda Villarreal oo uu wato tababarihii Unai Emery oo ay Cavani ku soo wada shaqeeyeen kooxda PSG. waxaana la filayaa inuu maalmaha soo socdo Cavani ku biiro kooxda Villarreal. dhinaca kale sida ay taabaceen warbaahinta magaalada Madrid waxaa la filayaa inay ciyaartoyda kooxda Real Madrid heli doonaan abaalmarino kala duwan toddobaadyada soo socda. sida ay xuseen warbaahintu waxaa la filayaa inuu ciyaartoyga Karim Benzema ku guuleysan doono jaayisada Ballon d'Or ama kubadda dahabka ah
oo Karim Benzema kamid ahaa ciyaartoyda ugu fiicnaa xilli ciyaareedkii dhamaaday iyadoo la filayo inuu goolwadaha kooxda Real Madrid ee Thibaut Courtois isna ku guuleysan doono goolwadihii ugu fiicnaa adduunka xilli ciyaareedkii dhamaaday sidoo kale waxyaabaha uu wargeysku sheegay waxaa kamid ah in la filayo in ciyaartoyda Luka Modric iyo Vinicius Junior oo kamid ahaa ciyaartoydii ugu fiicnaa xilli ciyaareedkii dhamaaday inay kasoo muuqan doonaan shaxda ugu fiican adduunka ee ay soo saarto FIFA halka la rajeynayo inuu ciyaartoyga Camavinga ku guuleysto jaayisada Golden Boy-ga oo kana mid yahay ciyaartoyda ugu cadcad ee ku guuleysan karta halka ay kooxda Barcelona rabto inay 940% iibiso studio kooxda Barcelona iyagoo ku iibinaya 200 oo milyan sidoo kale sida la sheegay kooxda Barcelona waxaa ku filan inay hesho 100 milyan ama kooxda Barcelona waxaa ku filan inay gacanta ku dhigto 100 milyan si ay u diiwaan geliso ciyaartoydeeda cusub sidoo kale sida ay qoreen warbaahinta wadanka Faransiiska ciyaartoyga kooxda PSG uga ciyaara khadka dhexe ee Idrissa Gana Gueye ayaa rabay inuu sii joogo kooxda PSG isla wadanka Faransiiskana kooxda Lyon ayaa la filayaa inay la soo wareegaan daafaca bidix ee kooxda Ajax ee Tagliafico waxaana la filayaa inay saacadaha soo socdo ku dhawaaqdo heshiiska oo kooxda Olympique Lyon waxaa shalay loo soo bandhigay ciyaartoyga hore ee kooxda Real Madrid ee Marcelo balse kooxda ayaa diiday maadaama uu mushaharka ciyaartoygu aad u sareeyay halka ay kooxda Nottingham Forest rabto inay la wareegto ciyaartoyga kooxda Real Betis ee Alex Moreno waxa uu heshiisku marayaa bilow balse weli ma jiraan waxay isku afkarteen labada kooxood oo waxa warar la sheegayo weeyaan laakiin labada kooxood weli wada hadal ma gelin dhinaca kale waxaa la sheegay in ciyaartoyga kooxda Chelsea ee amaahda ugu jooga kooxda AC Milan ee Bakayoko inaanu kamid ahayn qorshayaasha kooxda AC Milan xilli ciyaareedka dambe waxaana la filayaa inay amaahdiisu ay kooxda AC Milan inay joojiso amaahdiisa oo ay dib ugu celiso kooxda Chelsea iyadoo la filayo inuu hadii ay taasi dhacdo inuu ciyaartoyga Bakayoko u dhaqaaqi doono xagga iyo kooxda Valencia taabadalkeeda sida ay sheegtay warbaahinta Talyaaniga kooxda AC Milan ayaa isha ku haysa ciyaartoyga kooxda Barcelona ee Miralem Pjanic oo dhici karta inay kooxdu la soo wareegto ama ay dalab ka gulbiso maadaama oo Pjanic aanu kamid ahayn qorshayaasha tababare Xavi kooxda Barcelona sidoo kale aanu si joogta ama oo qayb kamid ah ciyaaray xilli ciyaareedkii hore oo intii kale hab ama ah uu ugu tagay kooxda Turkiga ka dhisan ee Besiktas dhinaca kale sida ay qoreen warbaahinta Talyaaniga ciyaartoyga cusub ee kooxda Roma ee Dybala ayaa goob joog u ahaan doona kulanka ay kooxda Roma caawa kula ciyaari doonto kooxda Sporting Lisbon wadanka Portugal sidoo kale xidiga Dybala ayaa la filayaa inuu xidho lambarka 12 kaas oo hadda wato ciyaartoyga cusub ee Matic balse Matic ayaa la filayaa isaguna inuu u wareego lambarka 8aad halka ay kooxda PSG soo saartay maaliyadeedii labaad ee kooxda taas oo la filayo inay ku ciyaaraan kulamada awayga ah qodobada kale waxaa kamid ah inuu ciyaartoyga cusub ee kooxda Bayern Matthias de Ligt inuu ka gudbay baaritaanka caafimaad waxaana la filayaa inuu ciyaartoygu hadda si toos ah uga qayb qaadan karo tababarka kooxda sidoo kale waxaa la sheegay inuu ciyaartoyga kooxda Monaco ee Henrique uu yahay qorshaha labaad ee kooxda Barcelona haddii ay kooxda Barcelona ku fashilanto la soo wareegida Marcos Alonso haddaba saxiixa Henrique ayaa la filayaa inuu kooxda Barcelona ku kalifo 20 ilaa 25 milyan oo kooxda Barcelona haddii ay awoodi weydo ama ay ku adkaato la soo wareegida Marcos Alonso waxaa la filayaa inay la soo wareegto Henrique oo ah ciyaartoyga uga ciyaara daafaca bidix kooxda Monaco sida ay sheegayaan warar ka soo baxaya caasimada Paris kooxda PSG ayaa u soo bandhigtay kooxda Manchester City ciyaartoyga Neymar iyadoo ay kooxda PSG taabadelkeeda rabtay ciyaartoyga Bernardo Silva balse kooxda Manchester City ayaa ku gacan saydhay oo diiday yacni kooxda PSG ayaa Neymar u soo bandhigtay kooxda Manchester City waxayna taabadelkeeda rabeen inay kala wareegaan ciyaartoyga Bernardo Silva balse arrinkaas ayaa kooxda Manchester City diiday halka ay sheegayaan warar ka soo baxaya tababarka kooxda Manchester City goolwadaha kooxda Manchester City ee Ederson ayaa uu dhaawac ka soo gaaray madaxa kadib markii ay isku dhaceen saaxiibkii Haaland xilli ay kooxda Manchester City ku jirtay tababaro ay iskugu diyaarinaysay kulamo saaxiibtinimo ah oo la filayay in kooxda Manchester City maalmaha soo socda ku ciyaarto wadanka Mareykanka sida uu sheegay Fabrizio Romano kooxda Juventus ayaa heshiis la gaadhay ciyaartoyga kooxda Torino ee Premier waxaana la filayaa inay kooxda Juventus ka bixin doonto ciyaartoyga ilaa 40 milyan waxaana la shaacin doonaa saacadaha soo socda heshiiskaas